waxaa si heersara magaalada Columbus uga dhacday munaasabadda qalinjebinta ardayda dhigata Focus Learning Academy oo ka mid ah iskuulada sida gaarka loo leeyahay ayna dhigtaan ardayda ugu badan Soomaalida Columbus iyo Ohio ayadoo boqolaal arday waalidiin macallimiin iyo marti sharaf kale ay ka qayb galeen xaflad si weyn loo soo agaasimay munaasabadan oo ahayd mid farxad iyo reereyn leh ayaa lagu maamusay dadaalka iyo guusha ay ardaydu gaareen kadib sanado waxbarasho iyo juhdi badana howlka xafladda lagu qabtay ayaa lagu arkayay ardayda oo xiran dharka qalinjebinta kuwaas oo ay wajiyadooda ka muuqatay farxad iyo rajo ku aadan mustaqbalkooda waxbarasho iyo nololeed mas'uuliyiin ka tirsan maamulka iskuulka ayaa hambalyo iyo dhiirigelin u jeediyay ardayda qalinjebisay ayagoo sheegay in maalintan ay tahay mid muhiim u ah nolosha ardayda iyo qoysaskooda waxay sidoo kale tilmaameen in ardaydu ay yihiin jiilka berita ee bulshada hogaamin doona isla markaana looga baahan yahay inay sii wataan geedigooda waxbarashada iyo horumarka waalidiin iyo qoysaska ardayda ayaa iyaguna muujinayay farxadda ay la wadaagayaan carruurtooda waxaana lagu arkayay goobta xafladdu ay ka dhacaysay waalidiin walaalo iyo saaxiibo codkooda iyo mashxarad ku taageeraya marka ay maqlaan ardayga u yimaadeen inay ka qayb galaan qalinjebintiisa ayagoo sheegay in qalinjebintan ay tahay miro ka soo baxay dadaal dheer iyo taageero joogto ah oo ay waalidiintu siiyeen carruurtooda intii ay socotay munaasabadda waxaa jiray khudbado kala duwan iyo sawirro xasuus reeb ah oo ay ardaydu la galayeen waalidiintood saaxiibadood macallimiinta iyo cid kasta oo u arkayay in ay qayb ka tahay guushooda horumarineed ee dhinaca waxbarashada qaar ka mid ah ardayda qalinjebisay ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay gaareen heerkan waxbarasho ayna rajaynayaan inay sii wataan waxbarashadooda haddii ay ahaan lahayd dhinaca dugsiyada sare kollejka jaamacadaha iyo weliba helista xirfado aad noloshooda u taageera gabagabadii xafladda qalinjebinta Focus Learning Academy ayaa ku soo dhammaatay jawid farxad iyo damaashaad leh iyadoo hambalyo iyo bogaadin loo diray dhammaan ardaydii qalinjebisay iyo qoysaskooda. This is a community of commitment, long-term commitments. And those of you who just joined this year, the Focus community, we welcome you and we want to remind you that you are part of this community. You belong in our school and the traditions and the cultures that our school community has will persist and continue to exist. One of them is having that open door policy that everyone who has their children in this school or who is part of this community is more than welcome to come, ask us questions, use our facilities, and take advantage of all the resources that we have. So I want to one more time take a moment to welcome you all to the Focus community. Our parents, they put their efforts, their time in order, to raise a very strong and smart, generation. But I understand that there are, challenges. As a parent, myself, I can understand that. But the only thing that we can tackle that is if we work together as parents, as teachers, as community members. We all need, to, work together because we have one goal, to raise, this generation. This is the generation of tomorrow. We have here our nurses, our engineers, our doctors. As we've said, today is a day of celebration. It's a day of recognition. We want to offer our congratulations to every one of these kindergarten classes that sit here before us right now. And we're going to do that two ways, right? First, we're going to give each of these classes a chance to come up and perform what they've been spending a good long amount of time getting ready for and practicing for. I've seen them put in a lot of work. I've certainly heard them put in a lot of work as well. So after we have heard a couple of performances, we're then going to pause and hand out some recognition, some awards for a job well done. Good morning and Sabah Wanaagsan. Magacayga waxaa la yiraahdaa Abdulrazaq Farah. I am the Focus Learning Academy at Northern Columbus. Schoolkeena for the last 20 sano la soo dhaafay. Waxaan graduate gareynay waxaan Central Ohio oo in badan ka tirsan ay yihiin Soomaali.
We've been lucky enough waxaan nasiib aan u yeelanay in waalidiin badan oo Soomaaliyeed ama muslimiin ah ama dadka central ohio degan ay carruurtooda nagu aaminaan oo aan u kuweyno oonu barbaarino. Classkan wuxuu ahaa classkii ugu badnaa ee central ohio, central columbus, ka yimaada oo Soomaali u badan oo gaaraya ilaa iyo 160 carruur ah ay maanta ku qalinjibisay galaaska sideedaad ee iskuulkeena. waxaa kaloo nasiib yeelanay sanadkan inay ku jiraan carruur aad u fara badan oo ahaa honor roll students ahaa barashadooda iyo dadaalkooda uu aad u sarreeyey. Our 8th grade year, that change is inevitable, and we decided let's fit or not. Middle school isn't about being perfect. It's about being brave enough to try something new. Throughout our middle school years, we've gone from being anxious to confident as we've grown. And for that, we thank our teachers greatly as they've been guiding us each step of the way. To them, we owe many thanks for the days that they stayed up working on curriculum for us, the days they lost their voices to teach for hours on end for us, and the days that they were the clear reason we passed at last. We thank our parents for the immense support they've given us throughout these hard years. As we look towards high school, it's easy to feel nervous, but we know that this year has prepared us for unprecedented changes ahead of us and taught us that we can adapt to anything. Facing the future ahead of us, we know that although it may seem impossible to push through, we'll be able to if we simply believe in ourselves. To all continuing students, middle school and elementary, our message to you is to always be determined, hardworking, and resilient. Stay focused on your work and enjoy yourself, because before you know it, this will all be over and it will be your turn. To all graduates, we can celebrate just for now because we've conquered the challenge of middle school and now we're ready for the next part of our journey. Congratulations, class of 2026. I am the father of Princess Manuel. She just graduated and she will be going to New Albany High School. And from there, she'll be going to college. I am very grateful of Focus Academy and their programs. She only here for 2 years and she learned a lot of English. She has learning a lot. She's an honor roll student. She is very great and I am grateful for that.